pageka ugu horeeyo oo aad arki doontid si isla markaas macana account aad u furatid. Inta badan accountyada waxay u baanaanayaan in aad email aad lahaatid, personal email, professional email. Personal email waa emailada caadiga ah idinka aad isticmaashaan. Professional email ama business email waa emailada businesska loo isticmaalo sida at info@amazon.com, contacts at kulancafe.com, sidaas ayaa loo yaqaana. marka si ay ahaataba waxaad u baahan tahay in aad haysatid email. labadana waxa ugu muhiimsan inaad haysatid business email. waa topic kale masii gudageli doono insha allah, lakin waxaa ugu muhiimsan inaad haysatid business email. waxay muujinaysaa in adi oo company aad tahay markii aad supplierka ama dadka alaabta aad kasoo iibsanaysid aad la hadli haysid, qiimo weyn toodaad ku yeelanaysaa insha allah. marka waxaan isticmaali doonaa email emailada badankood waa aan isticmaalay, balse waxaan isku dayi doonaa inaan email create gareeyo isla markaas haddana emailkaas aan isticmaalo. alright, bilaw login. marka waxaad u baahan tahay si isla markaas aad email isla markaas aad u create garaysatid account, waxaad u baahan tahay sign up inaad tirahdid. sign up emailka waa inaad gelisaa, ama haddii telefoon aad ku furanaysid passwordka kii kale ayaad gelinaysaa. markan waxaa waaye markii aad mar hore account aad u lahayd, laakiin hadda ayaad kii kale account samaysanaysaa. waxaad u baahan tahay inaad aadid create Amazon account. alright, create Amazon account. email aan soo furto, gmail. right, okay, waxaan u baanaanaa right, sign out, no, add account, new account. alright, waxaan dhihi doonaa test 2022. alright, that should be the email that I'm creating. Create account for my, let me say, for my business, myself, my child. alright, create account for myself. alright, alright, let's come back again. Create account. alright, waxaad u baahan tahay magaca inaad gelisid.
Okay, verification code sent to this email. Get started. Alright, no phone call. Text message, more other option. Security key, sign in. Okay, why should it take me through all this? Alright, let's do it this way. Maybe Gmail. Alright. Verification account. Code ka soo qaado. Code ka lagu soo diray. Control copy. Come back to Amazon. Create account. Alright, wuxuu ku leeyahay welcome here. What to expect? Provide your documentation. Well, we will verify your submission. Get verified and start selling. Waa saddexda qeyb ugu muhiimsan waay marka. Waxaad u baahan tahay documenti oo sax ah inaad isticmaashid. Waa kusoo wici doonaan. Ka bacdi unbaad wax iibin kartaa. Haddaba waa kusii soconaynaa. Begin ayaan leenahay. Waxaad u baahan tahay meeshan inaad gelisid macluumaadka saxda ah oo passport kugu qoran yihiin ama license kugu qoran yihiin ayaa ugu muhiimsan inaad gelisid. Kooda wadanka ayaa dooranaysaa. Business type, state owned, public owned, charity, none. I'm an individual. Middle, first name, Hussein. I confirm the detail ka ayaad buuxinaysaa. Alright, country of citizenship, date of birth, alright, driver's license, right, alright, residential address, alright, address ka ayaad meesha gelinaya. Alright, got it. Play SMS. Telephone number inaad gelisid via code. Verification code.
okay muxuu ku leeyahay marka bank account information ayaa lagaaga baahnaanayaa. Next, continue deh. Right, financial institution, verify bank account. Okay, this is more information. Marka intaan dhan waa inaad buuxisaa and alright, you can't skip it here. Alright, qaybtan waxay u baahnaanaysaa in video aan ka sameeyo si isla markaas detailkan aan dib mar kale maxaa lihi jiray aan u qariyo, waayo waa very confidential information marka. Alright, videoyada kale ayaa idinka tusin doona. Accountiga horta sidaasaad u gelaysaan, wixii macluumaad ee lagu weydiiyay ayaa sidaas ayaad u sameyneysaan. Waxaan idin tusinaya accounti kale aad u baahan tahay inaad sameysid, kii kale ayaan sii guda gelaya. kan kale aad u baahan tahay waxaa waaye waa inaad haysataa account Fiverr, sidaas oo kale fiverr.com. asna sidaas oo kaleet waxaad u baahan tahay website-kan wuxuu kugu kaalmeynaa inaad heshid professional freelancers. waxaad u baahnaanaysaa dad professional ah oo isla markaas kuga caawiyaan si aad u heshid descriptionka lagu qoro, alaabta maxaa lahaye titlekeed lagu qoro, packaging in lagu sameeyo, waxyaalahaas dhan ayaad ka heli kartaa. micnaha waxaa ula jeedaa for example haddii product aad keenaysid ama alaab haddii aad keenaysid, alaabtaas isla markaas magac haddii aad u baahan tahay, box in lagu sameeyo, designkeeda haddii u baahan tahay, meeshan ayaad ka heli kartaa. for example product listingka markii oo qoraalka aad sameynaysa, search engine optimization, dad isla markaas ku takhasus ayaa jirto, lacag yarna kugu sameeyo. product listing, amazon product listing, waa aragtaan dad isla markaas ku takhasus ayaa meesha ku jiro oo ratingkoodna aad iyo aad u fiican oo lacag yarna kugu sameynayaan. marka markasta waa muhiim in adi qof professional aad isticmaashid si isla markaas uu kugu qoro, waayo waa investment oo isla markaas adi oo si fiican baseka inaad ka dhistid aad u baahan tahay. moogiya qaladaad in haddii aad ku bilawdid waxaa waay maanta oo dhan wax le correction ayaad sameynay. lacag yaraa siine, qofkaasaa kuu qoray, titleaa lagu qoraa, wax saas u badan ma ahan oo aad la hadli kartaa qofka, communicationka, chattingka, qofka aad ka heshid ama lacagta aad awoodid waa lagu soo qoraa. sidaas waaye, markaas waa lagu soo diraa, amazon ayaa la tegaysaa. marka kabacdina waxaad sidoo kale product packaging, alaabta markaad aad ka go-aansatid packageka meesha aad oo designaga aad ka raadinaysa inta ayay noqon doontaa. macnaa isla markaas boxka, containerka oo ay kuu design garayna, waayo waqti manufacturerska aad u tagtid ama qofka aad kusoo iibsanayso alaabta kuu sameyna warshada, waxay ku leeyihin product packagingkaas keenso. waa designka waa inaad la tagtaa, ayaga packageka kii kala sameynaya laakiin designkood inta ayaa lagu sameeyaa. marka dadkaana la hadlaysaa. marka that is another way. sidaas oo kaleet waxaa jiro dad ku takhasusay paid per click advertisement. isla markaas ayagana macnaha accountiga amazon markaad furatid waxaad siinaysaa option ay ku geli karaan isla markaas advertisement, xayeysiin ay u sameeyaan alaabta. marka waa muhiim, account aad iyo aad muhiim u ah, aad u baahan tahay sidaas oo kaleet inaad furatid. waa accountiga kale aad ugu muhiimsan aad u baahan tahay inaad furatid. kan kale saddexaad waa kan ugu muhiimsan aad u baahan tahay inaad haysatid. sign in halkaas ayaad ku gelaysaa markii aad gelaysid, laakiin markaad sameysanaysa account waxaad leedahay join, emailkaadaad gelinaysaa, continue, username aad sameysanaysaa, test somali amazon.com, test somali amazon somali, test somali, password, alright. account oo aad leedahay, marka wixii adi aad samaysid kulli accountiga ayuu macnaa isla markaas ku sugnaana. isla markaas sidaas ayaad ku isticmaali kartaa. alright, accountigan wuu kuu samaysan yahay, mar kale ayaad u baahnaanaysaa. waxyaalo badan ayuu leeyahay, keliya intaan aan kuu sheegay maan wax badan, translation, animation, intaasoo dhan ayuu leeyahay. waa account aad iyo aad u fiican. markii kan aad heshid waxaad u baahan tahay mid kale saddexaad oo ah
Alibaba asana waxaa waaye Alibaba Express. This will be Alibaba official website. sidoo kale waxaad u baahan tahay account inaad ku samaysatid website-kan waa meeshii aad ku raadin lahayd warshado oo ama supplier oo alaabta ay ku sameeyaan markii packageka aad soo heshid aad soo qaadatid alaabta aad ku go-aansatid ayaa waxaad imaaneysaa meeshaanaad imaaneysaa waxaad ku raadineysaa isla markaas haddii dhar uu ahaa haddii barfuun u ahaa waa aad raadineysaa marka waxaad leedahay haddii aad u baahan tahay inaad sameysid maxaa la dhihi jiray mobile camal waxaad raadinay mobile package waxaad rabtaa productiga ama telefoonada baqshada la geli inaad macnaa lagu soo sameeyaad u baahan tahay waa imaaneysaa meeshaad ku raadine waxaa kusoo baxay inta wershado isla markaas meesha ay ku jiraan oo sameeyaan ilaa iyo meeqaasan ay sameynayeen taksuus waxay u leeyihiin shahaadooyinka ay leeyihiin intaasoo dhan ayaad meesha ku arki doontaa marka isla markaas waa aad dooranaysaa marka wershadan oo kale aad fureysaa isla markaas waxay ku leeyihin ready electronic marka website-kan asana wuxuu u baahan yahay training kale ayaan ku qaban doonaa isla markaas inaad ogaatid dad oo supplier aan factory aan ahayn ayaa jirto dad oo wholesale ah ayaa jirto dad waxaa jiro oo macnaa brokerage ah intoo dhan waxay leeyihiin account ay leeyihiin marka waxaad u baahan tahay inaad kasoo gadatid warshado directly ay sameyneyso dadkaasa ugu raqiisan marka waa inaad also aad ogaan kartaa inaad kala bixin kartaa retailerska dadka warshada leh dadka brokerage-ka ah waa inaad kala bixisaa marka si aad ugu soo heshid alaabta si raqiis ah waxaad ku helaysaa macnaa adi 1 cent 2 cent 4 cent in alaabta aad sameyneysid raqiis sidaad uga heshid ayaa alaabta raqiis kuugu noqonaysaa sidaad ku heshid ka bacdina waxaad u baahan tahay isla markaas inaad ka fikirtid advertisement lacagtaada badan inay gasho advertisement xayeysiinis ayaa loo baahanya marka laakiin markaad keenaysid waa inaad alaab raqiis aad ku keentaa marka taasina waa ka hadli doonaa accountigan ayaad u baahnaanaysaa inaad furatid haddii aad u baahan tahay sidaad idin sheegay wax kale haddii aad u baahan tahay halkaas ayaad gelinaysaa warshada ayaad arkaysaa waad la xiriireysaa marka si aad account u furatid waxaa waaye join free ayaad leedahay inta badan website-ka chinese ayaa iskale luuqada isla markaas english ahaana ugu translate garaysanaysaa marka always translate from Chinese. Alright, magaca isla markaas adiga waxaad tahay baaya ayaa tahay seelamatid emailkaada gelinaysaa password ayaa sameysanaysaa zero 711681297. Alright, company name, right, then landline wuxuu ku leeyahay lambarka ay kii kala geli ka bacdi markaasna waxaa waaye inta kale waa very simple register account ayaad yeelanaysaa oo aad ku awoodi kartid si guda aad u geshid aad u raadsid sidaas oo kale aad u gelaysaa marka aad waxaad ku raadin kartid wixii qofka aad la hadashay kulli messagekaas intaas ayaa macnaha kugu macnaha dadka aad la xiriirtay ama dadka supplierada ah halkaas ayaad kala xiriiri kartaa marka orderka aad dirsatay wax kasta waa kuu save garaysmaa marka waa muhiim accountiga inaad haysatid ayadna waa ka hadli doonaa aad iyo aad waxyaalo scam ayaa iska jiro productiga haddii producta qaldan haddii lagu soo diray sidii aad kusoo celisan karta lacagtaada product aad ku celin kartid ayaa jirto nidaamyo badan oo dadka supplier lala hadlo ayaa jirto qoraalo ayaa jirta ayaga naftirkood waxaa waaye hadalka iyo qoraalka aad la hadlayso naftirkood waa ay assess gareynayan waayo intaasoo sano ayay macnaa businesskaas ku jiraan waa garan karaan qof cuseeb iyo qof oo macnaa ganacsi garanayo marka sidaas oo kaleedna waa ogsantihiin suuqa markaad tagtid haddii lagu marsiin karo waa lagu marsiina marka waxaad u baahan tahay inaad ereyo khaasatan aad isticmaashid nidaamka loo gurgurtamo intaasoo dhan ayaa macnaha idin tusin doonaa balse saddexdan account ayaa ugu muhiimsan in aad furatid si isla markaas kooda aad u bilowdid Amazon account marka
videoga maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan next week aan geli doonaa qeybta ugu muhiimsaneen oo waqti badan aan ka qaadan doono si loo raadiyo productiga. waa qeybta ugu muhiimsan. qeybtaas waa qeyb aan lagama maarmaanka aan la misgarayn karin, aan lagu boodboodi karin. halmar haddii oo product qaldan aad keentid waxaa waaye waa wastage, waa khasaaro. orod iyo deg deg iyo kii kale looma baano. waa steebyo badan inaad martaa si aad usoo raadisid alaab ku iibsanto. haddii oo isla markaas hami uu ku galo, orod uu ku galo, micnaha waxaa waaye alaab qaldana isticmaale, waa khasaaro aad adi isku horseedayso ayay noqonaysaa. marka next week insha allah waxaan fiirin doonaa sida productigaas loo raadiyo iyo qaababka aad u isticmaalaysid iyo software aad isticmaali kartid aad ku raadin karto alaab sida loo raadiyo oo alaab ku iibsanto. markii aan sidaas aan sameyno haddana nidaamyada kale ayaan galaynaa sida supplierada loo raadiyo, packaging sida loo sameeyo iyo waxyaalaha kale product la xiriiro. trainingka badankiisa waxaan focus ka saari doonaa alaabta productiga, waayo Amazon platformka sida loo isticmaalo waa ay fududahay. meeshii adi aan garanaynin waxaa waaye qof kale Fiverr aad aadaysa, qof kale ayaad macnaha $10 $20 siin kartaa, ku hagaajin karaa. balse alaab qaldan hal mar haddii aad isticmaashid waa khasaaro. marka waa qeybta ugu muhiimsan loo baahan yahay in waqti badan loo qaato waa product search iyo product listing. marka intaasaa macnaha next week xoogga saaraynaa iyo waxyaalaha kale la xiriiro. haddaba haddii su-aal aad qabtaan oo ay soo weydiin kartaan, haddii oo su-aal dheeraad aad qabtaan ay soo weydiin kartaan xagga commentiga waa kusoo dhaafi kartaan. insha allah waa kusoo jawaabi doonaa. wixii kale dheeraad ahna waa iska warhaynaynaa insha allah. waa inoo sabti dambe. yaa su-aal qabo, haddii su-aal aad qabtaan. koorsada waa aan bilaabay, weli ma aanan upload garaynin. videoyada waa aan sameeyey. insha allah next week diyaar ayay noqonayaan. editing iyo waxyaalahaas ay u baahan yihiin. editingkii ayaan weli ku jiraa. by next week ayadoo faahfaahsan oo step by step ah ayaad arki doontaan haddii oo koorsiga aad ku subscribe garaysid. marka insha allah next week koorsada diyaar ayay noqonaysaa, waana idinla soo qeybsan doonaa. marka hadda insha allah dulmar un baan sameeyey waxaad u baahan tahay, balse taasi waa deep step by step. waxaad u baahan tahay waxaad arkaysid dashboard kasta sida verification loo sameeyo, waxyaala aad u baahan tahay. intaasoo dhan ay macnaa koorsada ay macnaa ku tusin doontaa, balse hadda dulmar un baan sameeyey. marka insha allah haddii su-aal aad qabtid fadlan isku day macnaa sidii oo aad xagga commentiga aad kasoo dhigi lahayd. Sulaymaan wuxuu leey package sidee loo dhisaa, ma wordpress baa lagu dhisaa package? okay, packageka waa baqshada ama kartoonka aad isla markaas maxaa la dhihi jiray oo alaabta lasoo geliyo. oo packagekaas waxaa lagu diyaariyaa software, ma garan karo ani, waxaan u malaynaa in lagu diyaariyo adobe waxyaalahaasaa lagu diyaariyaa. marka inta badan dadka packageka diyaariya waxaa lagu helaa Fiverr. product packagingka haddii aad u baahan tahay Fiverr aad product packagingka wax kasta aad u baahan tahay, service kasta aad u baahan tahay, isku day inaad ku raadisid Fiverr. waa waxa ugu muhiimsan idin lasoo qeybsaday website-kan waa sidaas. waa Fiverr, Alibaba iyo Amazon. saddexdan waa muhiim si aad online express. midda kale inaad ogaataan waxaa waaye Amazon quick money, quick reach ma ahan. waxaa waaye waa investment. waa hal product, labo product aad dhisaysid si isla markaas salkood inaad u dhigtid. hal mar haddii salkiis aad dhigtid micnaha waxaa waaye product supplier fiican ayaad raadinaysaa, alaab ku iibsanta ayaad raadinaysaa. marka alaabtaas aad heshid linkiga waa isku xiraysaa Amazon ilaa iyo supplierkaas. alaabta xayeysiin ayaad u sameynaysaa, review ayaad u raadinaysaa. saaxiibada qaraabada ay dhahaan macnaa ay kusoo qoraan wallahi alaab fiican waaye. dadka ayagoo arkin alaabta qof isticmaalay makaa gadanaya. ayadna waxaa nidaam kale aan baran doono. markaad dhistid waxaad arki doontaa alaabta oo markastaba macnaa maalintiiba 5 6 7 ku gadmoosho 7 ilaa 10 xabo. marka maalintii haddiiba 100 adii aad samaysid, ama haddii maalintii keliya adii aad samaysid maxaa la dhihi jiray $80 oo kaleed, adoo oo macnaa shaqada ay hoolaha kale iska wadatid
bishii waxaa waaye lacag fiicana ka qabanaysaa. marka waa step by step, waa investment oo futureka adi aad sameynaysid waay. marka waqti ayay ka qaadanaysaa inaad gelisid dhisitaanka, review inaad raadisid, ma ahan isla markii le hal mar inaad hoosh issaar maahan. waxaa waqti ay qaadanaysaa. hooshana deg deg uma baahno, waxay u baahan tahay si tartiib ah in lagu fiirsaday u baahan tahay, waayo ilaa iyo 3 iyo 4 product ayaad macnaa aan iga halawday isla markaas aan ku baranayo markii kowdii aan bilaaway. marka waxaad u baahan tahay ka fiirsasho aad iyo aad ayay u baahan tahay ka hor intaadan ka go-aansanin alaabta adi aad keenaysid. marka sidaas waa adi. waayahay haddii su-aal kale aan jirin fadlan isku daya in macnaa isla markaas inaad commentiyada kale comment macnaa su-aalaha comment kusoo dhaafa. wixii kale su-aalo dheeraada insha allah sabti dambe ayaan wada hadli doonaa, sabti dambe ayaan kulmi doonaa insha allah. maca asalaama.